Iran ayaa ku dhawaaqday mowjado weeraro gantaala iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee gudaha Israa'iil xilli Israa'iil ay gashay xaalad bandow ah oo dadka lagu xareeyay goobaha gabaadka ee weerarada sida uu wareegay janaalka 12. Israa'iil ayaa ugu digtay muwaadiniinteeda ku sugan dibadda inay la kulmi karaan weeraro uga yimaada Iran iyadoo golaha ammaanka ee Israa'iil ay digniin ka soo baxday lagu sheegay Israa'iiliyiintu inay si taxadar leh u dhaqmaan. Ruushka ayaa si cad u sheegay inay Israa'iil kula kacday khiyaano markii saraakiisha Israa'iil ay ku wargeliyeen Ruushka inaysan daneynin dagaal militari oo ay la galaan Iran ka hor inta uusan bilaaban duulaanka wadajirka ah ee Mareykanka iyo Israa'iil. Duulaanka wadajirka ee Mareykanka iyo Israa'iil ay ku qaadeen Iran waxa uu indhaha u jeedinayaa Ruushka iyo Shiinaha, kuwaasoo xulafadoodii Iran ay weli la kulmayaan dhaleecayn howlgalkii Mareykanka uu ka fuliyay Venezuela. Mareykanka iyo Israa'iil weerarada ay wadajirka ah ay ka wadaan Iran ayaa beegsanaya laba jiho. Mareykanka waxa uu beegsanayaa barnaamijka gantaalada Iran iyo goobaha laga rido gantaalada. Dhanka kale, weerarada Israa'iil waxaa lagu beegsanayaa saraakiisha sarsare ee Iran. Qatar iyo Imaaraadka Carabta ayaa sheegay inay xaq u leeyihiin ka jawaabista weerarada ay dhulkooda ka geysanayso Iran sida lagu xaqiijiyay war-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Qatar iyo wasaaradda arrimaha difaaca ee Imaaraadka Carabta.